الله وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسانو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socdaa casharadeenii taxanaha ahaa ee aan magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marba magac uga hadlaynay. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Al-Wahhab oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kamida magacyada uu leeyahay oo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu yahay deeq bixiye. sida darteed sifooyinka wanaagsan oo Ilaahay leeyahay oo khalqigiisa ugu nimceeyay waxaa kamid ah inuu Ilaahay deeq bixiye yahay oo asagu deeqda markuu doono ku siiyo sida uu doonana uu ku siiyo. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلهي سبحانه وتعالى أسجع لو يديستا إنه ديق قصيه أسجعنا ديق بحية. صدرتيد إلهي سبحانه وتعالى ديق بحنتيسو وأذيق أنا ويديسننا وكسينا يا صوبت هذا أذيق هيسننا صوبتي بوكوكينا يا وحون إسوكا دريا إنه وحكسيه أسجع وحبك هجا بدلنين أما أطلاب قانون شرعي أو إلهي سبحانه وتعالى ومر رسول شيء وكوع عقابه أيضا أن لغو حمينين. صدرتد مرور بإلهي سبحانه وتعالى وحواي أسجا وهابة أو ديق بحياء أو وحلا لي وحو الرب بحيو. إلهي أنكي سأبو حسيا وحو دونه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صدرتد إلهي سبحانه وتعالى حتى خلقه قفنا وحسينا يا لب قفنا وحسينا يا ردك قفنا وحاب الله يا بأنه الله بدأ بيسوق دره. adiga marka mar walba waxa laga doonayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaa wax weydiisato fahabli min ladunka waliya habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Ilaahay mar walba inaad weydiisanayso inuu wax kuugu deeqo. sida darteed deeqdu waxay ka timaadaa laba shay. mid waxa waaye cid wax la hayo in lagu siinayo waxaasna aan wax lagaaga bedelanaynin waana deeqdatan ugu wanaagsan waana mid Ilaahay bixiyo. Ilaahay wuxuu hayo oo khalqigiisa u diyaariyay buu siiyaa wax uu uga bedelanayo ma jiraan wax uu ku ciqaabayo darteed uu siinayna ma jiraan. sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa deeq bixiye aanan waxba kaaga bedelanaynin risqiga ku siinaya nolosha ku siinaya aqliga ku siinaya waxa uu ku siinayana markay ka dhamaadaan hadii hadana u baahato in wax kale lagu daro ama ayadii lagu badiyana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa bixiye. qof walbana wuxuu Ilaahay ka rabo oo uu ka rajaynayo buu Ilaahay siiyaa. Nabi Suleymaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiistay inuu siiyo boqortooyo aan cid asaga ka dambaysa la siinin Ilaahayna waa siiyay. sida darteed waxaa la rabaa inaad adiga laftigaaga aad waxa Ilaahay weydiisanayso aad taqaano. waxaa laga sheegay culimada muslimiinta nin kamid ah inuu ninku yiri warniyo aad baad u xoolo badan tahay taajir baad tahay dhaqaalahaagu aad ay u bateen maxay tahay sababta ay dhaqaalahaaga u bateen. wuxuu yiri markaan Ilaahay baryaayba Ilaahay waxaan ku baryaa ismul Wahhab. marka Ilaahay hadaa ku barido magaciisa Al-Wahhab oo deeq bixiye ah waxaad heli doontaa mar walba in adigana deeqada agtaada ay ku badato. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. culimadu waxay yiraahdeen aayadan waxa ku jirta afar mas'alo. mas'alada koowaad waxa waaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aad weydiisanayso wuu hayaa sida darteed wuxuu ku siinayaa wixii aad weydiisatay. waxay kaloo ku jirta bay yiraahdeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu hayaa waxyaabo kale oo aad iyo aad u fara badan oo aadan weydiisanin. waxa kaloo yiraahdeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala albaabka aad wax ku weydiisan lahayd oo waxaas kale uu hayana lagama xirin waa ku furan tahay hadii aad maskaxdaada ay ku soo dhacdo. sida darteed wuxuu kaloo Ilaahay ku furay su'aashi mar walba inay su'aasha ku furan tahay su'aashaasna ay Allah agtiisa ka tahay xuduud la'aan si Allah la iyo sida rabto aad Ilaahay u dhihi karto Ilaahu deeqda noocaasa ama sidaasaan ka rabaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkiisa saalixiinta ay ugu horeeyaan anbiyada mid walbana deeq gaara oo magac u noqotay oo asaga u gaara buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay. qaarkood wuxuu siiyay inay noqdaan dad carabkooda la rumeeyo oo run lagu yaqaano oo habna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin aliya. qaarkoodna Ilaahay wuxuu siiyay naxariis iyo maxaan ku raada hanuun buu Ilaahay siiyay. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. qaarkoodna Ilaahay wuxuu siiyay xukun
إيني وحمامولان ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين سيدا درتيد إذا قاركون إلهي وحي ويديسانيان أو إداقة إلهي كربان أي تاي إنو سيو قري وناكسن قور وناكسن إلمو وناكسن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قاركون إلهي سبحانه وتعالى بيبريان بريضو دين والو أجيبي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة سيدا درتيد إلهي سبحانه وتعالى ديق بحنتيسو وخزينو aan dhamaanin kayd aan dhamaanaynin adiga un bay kugu xiran tahay sida aad mar walba ilaahay kaydkaas buuxa aad waxaad uga baahan tahay aad u keensato oo tiraad ilaahay oo kaas aan uga baahanahay ilaahow midka iga sii sida darteed adoomada ilaahay waxa loo furay maskaxdoodu inay furaato oo maskaxda ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u siiyay awood ay ku dushaqayso wax allaale iyo waxa ilaahay awoodiisa uu ugu tala galay maskaxdaas ka badan xataa waa u isticmaali karta ilaahay wuxuu ku siiyay awoodaadu intay la eg tahay inaad ka badan isticmaali karto laakiin waxaa la rabaa marka aad fakarayso inaad ku fakarto maxaa suurtagal ah mararka qaar waxaa laga rabaa inaad ku fakarto waxyaabaha aan la filanaynin inaad ku fakarto marka aad wax qorsheysanaysan aad qorsheysato waxa suurtagalka ah waayo waxaa la rabaa hankaagu inuu la ekaado inay wax kasta suurtagal yihiin waxaa la yiraahdaa maskaxda bini aadamku waxaa la rabaa inay ku jirto maadaama aad deeq bixiye Allah subxaanahu wa ta'ala aad wax weydiisanayso inay maskaxdaada ku xiran tahay la rabaa in wax kasta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siin karo sida darteed khiyaalkaaga ama imaginationkaaga maskaxdaadu sida u fakarayso waxaa la rabaa inaad xariga ka furto oo aad muujiso wax kasta oo suurtagal ah oo aad raadiso inaad fuliso wax kasta oo suurtagal ah sida darteed maskaxdaadu waxaa la rabaa inay u furnaato wax allaale waxay heli karto waxay yiraahdeen maxaa la dhahaa suurtagal waxaa la dhahaa wax la sugi karo haddii la raadiyana la heli karo mustaxiilna waxaa la yiraahdaa shay aad garanaysid laakiin haddana aadan ogeyn sidaad ku heli lahayd ama aadan garanaynin meeshay ka jiraan yacni nolosha bini aadamka markuu leeyahay waxa suurtagal ma ahan suurtagal ma aha waxa loola jeedaa wixii waa inay jiraan waad ogtahay saad ku heli lahaydna ma taqaanid sida darteed waxa laga rabaa maskaxdaada inaad ka saarto waxaas waa mustaxiil ee maskaxdaada aad geliso waxa kugu soo dhici kara inaad u furto waxa kugu soo dhici karana aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisato Ilaahayna wuxuu ka yeelayaa wax allaale wixii cibaadadiisa kaalmeynaya wax allaale wixii adduunka in la camiro kaalmeynayo quraanka Ilaahay wuxuu ku yiri nabi Muuse ba Ilaahay weydiistay wuxuu yiri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري انت سو بريئة أو عدسي أبو هالمر اسكو دري وإلهي سبحانه وتعالى ويديستي إلهي وحو جوابي قد أوتيت سؤلك يا موسى وحي أدي ويديستي أو دان واكسي انت الشيء ويديستي واكسي علماء waxay yiraahdeen nabi Muuse alayhi salaam ma uusan weydiisanin Ilaahay wax asaga Muuse dantiisa ah ma weydiisanin wuxuu weydiistay wax danta diinta u adeegaya danta dacwadana u adeegaya ayadiina kulligeed waa la wada siiyay marka waxa la rabaa sida nabi Muuse alayhi salaam uu hal mar Ilaahay subxaanahu wa ta'ala intaas oo talabaada intuu u weydiistay وإلهي وإنت أيقو ديق هل مرنا لو يري قد أوتيت سؤلك يا موسى inaad adigana ka qaadato inaad alla agtiisa aad sidaas oo kale waxa rabto u weydiisan karto ayagoo wada socdana aad weydiisan karto ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu sidaas kuugu deeqayo uu ku siinayo والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذا تغنيني إساقا ودودا تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودونا يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسانو قلبيقو وهان هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مقا عيسو ووارسان دمانا